مثلا Soomaalida dad yowgi ugu badnaayay afkooda inuu koro ka qayb qaatay waxa kamida aniga aragtidayda saddex group koo waxa ka culimadii Soomaaliyeed hore culimadii Soomaaliyeed hore waxay isku dayeen afka Carbeed oo aad u ballaadhana inay siin karaan tarjamo Soomaaliya diinta islaamiga oo kutubteedu ay aad u ballaadhanta u macno weyn tahay inay siin karaan tarjama af Soomaaliya oo ay u bixiyaan laqab waa la laqabaynayaa baa la leeyahay sheekha Soomaaliyeed markuu kitaabka dhigayo wuu laqabayn jiray laqabadu waxa weeyaan eray kasto meesha ku qoran eray Soomaaliya u dhigan buu isku dayayaa inuu keeno hadhow xirtu markay ku ceeshanayso hadduu ninka xerawga ahi macnihi sheega laakiin eraygii uu sheekha sheeg waayay wuxuu oran jiray carabkii sheekha maaha maxaa looga jeedaa carabka sheekha yaani waa mustalahaat ay kala dhaxleen cilmi fudud maaha waa mustalahaat waa eray bixin ay soo kala dhaxlayeen inta soo qarniyo ay xijinayeen waa afkii Soomaaliyeed ay ballaadhiyeen oo ay macna cusub ku soo kordhiyeen yaani ninka fiqi dhigaya markuu yiraahdo hadduu faduuli aqdi gunto faduuli banaanjoog hadduu gunto bay dhahan banaanjooga ma taqaana yaani waa ninkan qadiyada isagu lahayn waa mustalax cusub oo u jideeyay ninkan sheekha ahi idan culamadii Soomaaliyeed hore ee isku dayday culumtii la dhigi jiray oo dhan inay af Soomaali ku dhigaan waxay guda ballaadhiyeen oo naaxiyeen afkii Soomaaliyeed qolada labaad ee dadaashay inay ballaadhiso waxa kamid ah warbaahinta dadkii ka shaqayn jiray hore maaha kuwan dambe warbaahintii hore ee Soomaaliyeed ama kuwa Ingiriiska u shaqayn jiray BBC ha noqoto ama kuwa idaacada Soomaaliya u shaqayn jiray ha noqdo waxay isku dayeen inay ballaadhiyaan oo af Soomaaliga macnihii uu lahaa mooyaane macno dheeraad oo kale ay ku daraan tusaale مثلا waxay isweydiiyeen erayga violence al-unf waxaynu ku tarjunaa ninkii warba laga rabaa inuu sheego warku af Ingiriisi ku qoran af Ingiriisiga violence baa ugu taala muxuu ku tarjumayaa af Soomaali markuu ku sheegayo muxuu oran way isweydiiyeen dal marnin la yiraahdo eray keenay kiibay qaateen gacan ka hadal buu bixiyay luqadeennii hore Soomaaliyeed gacan ka hadal kuma jiro ama maynan maqal gacan ka hadal laakiin waa afkiyo la naaxiyay hadal la weynu naqaanay gacanna weynu naqaanay laakiin markii la naaxiyay ee terminology laga dhigay cunfi ama violence kiibu noqday مثلا idaacadu waves bay ka hadashaa mitir baan lagu xisaabiyo waxay tarjumeen maxay ku tarjumeen hirka badaynu naqaanay inagu idaacada BBC oo ida kala hadlaysa hirarka dhaadheer iyo hirarka gaaga waxa soo maqashaan waa waves baa leedin tarjumay dabeetana erayga hir macno ku lahaa af Soomaaliga laakiin marka iminka la joogo warbaahinta hirku macno kale oo Soomaaliga ku soo kordhay buu tilmaamaya مثلا waxaad ka maqlaysaa iyagoo leh dayax gacmeed awowiyadeen satellite may maqalde mana jirin waa eray cusub oo la samaystay waxay u baahdeen inay iyana Soomaaliga soo kordhiyaan dabeetana waxay u bixiyeen maxay dayax gacmeed مثلا apartheid midab takoor Soomaalidu isku midab bay ahayd midab takoor wax la yiraahdo ma inaan aqoonin dhaqankeena kuma jirin waxa la soo bixiyay marka in midab takoor oo kala la tilmaamo erayada noocaas oo dhami barwaaqa sooran hanti wadaag hanti goosi maxaa la yiraahdaa waxa soo dhami waa afka wax lagu soo kordhiyay macnaheedu waxa weeyaan waa afkaaga oo la ballaarinayo wax jira laga dhigayo waxa kamid ah dadyowga ballaadhiyay tarjamadii dawladda Soomaaliyeed siiba macallimiintii dugsiyada sare ay u sameeyeen iskuuladii af Soomaaliga loo bedelay iskuuladii af Soomaaliga loo bedelay waxa la tarjamay waxa la aliyo wixii af Ingiriisi ku qoray la dhigi jiray ayaa luqada Soomaaliyeed loo raray maca mustalahaadki terminology-na isagoo la rarayo مثلا like circuit waxa la yiraahdaa halka wareega isku xidhiidhsan مثلا kan laambada ilaa iyo switchka inta isku xidhan waa one circuit waxay u bixiyeen mareegta ma taqaaneen marka hore
qool iyo mareegtu waa tii aynu maqasha marka adhiga maqasha laga sooco dee mareeg baa meel loogu xidhaa waa xadhig wareegsan oo meel loogu xidho dabeetana qoolalbaa ku xidhan mareegta neef waloo yaroo maqalaba madaxa loo geliyo lagu ilaaliyo inta loo soo daynaya neefkii la lisayay idan mareegii af soomaaliga macnay ku lahayd laakiin eraygii intay soo xambaareen bay waxay ku kordhiyeen inuu macno labaadna yeesho oo la fahmi karo oo ah circuitkii waxa laaliya waxa markaa physics iyo science iyo la dhigayay oo dhan sidoo kale ay u sameeyeen mustalaxaadkii bay ballaadhiyeen idan waa af soomaaliga oo la ballaadhinayo kii dawladda iyo maamulka iyo idaarada la ballaadhiyay مثلا waxaad maqlaysaa agaasime maamule gudoomiye maareeye xog haye dawladda dhexe dawladda hoose waxaad maqlaysaa erayo kugu cusub dambi baadhe xeer ilaaliye waxa soo dhamay waa mustalaxaad idaariyo la tarjumay eray bixintii idaariga ahayd baa la tarjumay erayadani waa af Soomaaliga ka mid yihiin maarayntu waa eray Soomaaliya hogaamintu waa eray Soomaaliya gudoomiyenimadu waa eray Soomaaliya xeer iyo ilaali waa eray Soomaaliya dambi baadhe waa eray Soomaaliya hanti dhowr waa eray Soomaaliya laakiin markuu mustalax noqdo terminology markuu noqdo waa macna cusub oo af Soomaaliga ku kordhisay idan afku qaabku koro waxa kamida in cilmiga lagu qoro oo ah inuu yeesho terminology ama mustalaxaat ama eray bixin af ingiriisiga ballaadhka aad arkaysa uu dhalane markii terminology oo dhan lagu daray ayuu wuxuu noqday maxay af tira badan oo ballaadhan waxa kale oo afafku ay qaataan inay haddii luqadoodii ay wax ka waayaan inay amaahdaan waa af oo dhan waa lagu yaqaanaa luqada carabiga markaad dhiganayso waxa lagu odhanayaa eraygani waa eray dakhiila ama waa eray meel kale laga soo amaanaystay حتى الله يسويديو قرآن كيريه كتيرو عربي وملك اللي لقى سو أمانيستو عربي وبملك كميديا نسك ممدها إذن ولا أمانيسان كرا مركز سو أمانيستنا حرك النحوه يصرف أفكار إلى هذا الله مريا دبتنا وح النقطة إري كمدة أفكار كبيري أسماء ذا الأمانيستا أنت بدن وحي أنا مركز هداية دقن الله أفكارنو baadiyaha markuu joogo waa qani waa afafka ugu qanisan dunidu kamidii waa afafka ugu gabay badan buu dunida kamidii markuu xaqaa joogto laakiin marka xadaarada magaalada loo yimaado dadku ama erayada way amaahdaan ama kuwooday dhaliyaan kuwan yaa dhaliya gudiya dhaliya dawlad waliba leedahay oo afafka u xisaabsan oo erayga cusub ku kordhiya eraya cusub amaahada af Soomaaligu ma inaga qura waxa maahna ma inagaba wala inaga amaahda ma umaleynaysa ingiriiska inaynu afka badha maahinay ma idlatay iya waa amaahina xayawaanaad jira geeska Afrika degan oo Soomaalidu magac u leedahay oo aan afafka gaaleed oo dhan magac u lahayn way dhulkooda ma joogo marka yimaadeen ay arkeen erayaynu inagu u sheegnay bay qaateen marka hadaad imka dictionary-ga baadho af Ingiriisi ama Jarmal ama Danish ama kana eray Soomaaliya caadiya ku qoran garanuug tama taqaanin xayawaanka la yiraahdo garanuug waa xayawaan Soomaaliyeed oo la yaqaan Soomaha xayawaankan deerada ka weyn ee luqunta dheer leh ee dhabarkana ku leh ee saadalka waxaad moodo in koora saarayaad moodo garanuugta xayawaanka la yiraahdo in dictionary maanta dunida yaala hadaad baadho xataa luqada carabiga garanuug baa la yiraahdaa garanuug bilqayn bay qoraan kuwa kale oo dhamina inagu gaabaynu qoraayo kaaf bay qoraan af Soomaaliga ma jiro eray kaaf ku dhamaada iyagu kaaf bay ka dhigteen markaa garanuug bay u qoreen waa luqada Soomaaliya asala idan ingiriiska waxbaynu amaahinay ama gaalada afkeena badbaynu amaahinay inay iyagu haynin inaynu iyana wax ka amaahanaa ceeb maaha laakiin waa inay martaa systemkii luqeed ee naxwiye sarfiyeed ee afkani u lahaa waa inay martaa haddaba waxaan leenahay afka haddii cilmiga lagu qorana wuu ballaadhaa oo mustalaxaad ku yeesha haddii amaahdiisa amaah macquul ay noqoto loo soo qaadana inta badan wixii qalab inoo yimi record iyo maxaa la yiraahdaa idaacad iyo magacay inoogu yimaadeen umaynu iska siinay maynan bedelin hatta waxa laga yaabaa dharkaynu xidhanno weelkaynu wax ku karsanno carabta Yamanta iyo meelahan bay inoogu dhawaa waa wada af Yamani waa dirc iyo maqla iyo tisti iyo wuxuu dhami waa af Yamani marka adeegta dharka la xidho shalmad maxaa la yiraahdaa malkhabad
waxa gabadha Soomaaliyeed mara xidhato dhan waa fi Yamani waxa aynu dhar xidhanaana iyana waa la mid marka laga reebo labada go aynu gaar u leenahay oo idan afka waana la ballaadhin karaa waanu dhiman karaa oo haddii la isticmaali waayo oo la qori waayo oo lagu hadli waayo wuu sii dhintaa haddaba waxaan uga dan leeyahay aan eraygan idinku tilmaamaya waxa weeyaan war af cilmiyi ma jiro ee dadku cid waliba iyada afkeeda ama cilmi ka dhigta oo cilmiga ku qorta ama jahliga ku qorta tusaale ahaan dawladda maanta dunida ku nool afafka marka la qiimeynayo afafka qaar waxa la yiraahdaa waa luqa munqarida waa luqa dabar gooday qaar waxa la yiraahdaa waa luqa mutaakila waa luqa cunmaysa qaar waxa yiraahdaan waa luqa muhtadira waa mid go'aysa haday dhamaanaysa naftu ka baxaysa afkii laga shaqeyn waaya heerarkan buu maraa wuu dhintaa dadyowga afkooda u dadaalay dawladda waxay soo nooleeyeen af aan hadda lagu hadlaynin ay dib u soo nooleeyeen dabeetana waxay ka dhigeen af cilmiya oo dawladda dhami ku shaqayso oo systemkeedoo dhami ku shaqeeyo oo waxbarashada ku shaqayso bal aqoomaha ugu dambeeyay maanta dunida technology-ga la soo saaro waxyaabo kamid uu ku qoran yahay iyaga afkooda yahuudda nimanka la yiraahdo Israel dawladdan hadda la yiraahdo ibrigo af dhintay buu ahaa yahuudani waa shataat meelaha laga keenay dadaan isku afahayn bay isu yimi mid Poland ka yimi mid German ka yimi mid Ingiriis ka yimi mid Caraba ka tagay oo kala wada afa dabeetana dawladda af cusub baa loo sameeyay luqa al-ibriya al-qadiima baa dib loo soo nooleeyay dabeetana waxa laga dhigay inuu noqdo af dawlad iyo system iyo waxbarasho iyo jaamacad ay ku socdaan ilaa iyo maanta laga yaabo tiknoolajiyada buxuusta ugu dambeeya wax ka mid inuu ku qorayo af cibri idan waa dad afkoodii dib u afuufay oo nooleeyay dadyowga qaarna afafkoodu way sii dhimanayaan United Nations waxay tilmaamayaan boqolkiiba 50 afafka maanta lagu hadlaa dhawaan bay dhiman doonaan bay leeyihiin boqolkiiba 96 ilaa 7,000 oo luqa maanta dunida ka jirta bay dhahaan boqolkiiba 96 afafka kamida 4% of the world population ma ku hadla that means afafka intii ugu badnayd dad aad u tiro yar ayaa ku hadla waxay tilmaamaan inuu dhimanayo laakiin dadka afkooda wax ku bartay 19 wadan ee dunida technology-ga hogaamiya waxay yiraahdaan waa 19 wadan oo qolo waliba afkeeda wax ku dhawarato yani in dunida technology-giisa wax ka hogaamin karta waxay asaas uga dhigeen inuu yahay maxay 19 wadan ee dunida ugu horeeya buxuusta cilmiga iyo technology-gu afkooda jaamacaadka iyo wax walba ku dhigaan 500 ee jaamacadood ee dunida ugu sareeya oo 35 dal ku yaala waxay wax ku dhigaan afkooda يعني afkooda markay wax ku dhigaan bay waxay noqdeen maxay jaamacada la yaqaano hadaba ayo hal xibba xalana af waa dhintaa haddii dadkiisu ay nolosha u diidaan waa weydooba hadday dadkiisu naaxin waayaan waa koraa oo waa naaxaa oo waa weynaadaa hadday dadkiisu aqoon-yahan ay noqdaan ama ay wax bartaan da waxaynu u baahanahay afka aynu ku hadalno ee af Soomaaliga ahi wuxuu ka mid yahay waa af qaniya marka afnimadiisa loo eego afafka maanta sii dhimanaya waddankan ay idinku joogtaan waxay yidhahdaan waxa ka mid ah qabiil Yaakuu la yidhaahdo oo Masayda la dega waxay yidhahdaan afkooda sax wax ku hadli kara hadda waxa ka nool 9 qof bay yidhaahdaan ilaa 4,000 qof weeyaan afkooda sax wax ku hadli kara bay yidhahdaan 9 qof baa nool 9kaasi maanta ay dhintaan bay yidhahdaan afkaas uu dhimanaya Masayda ka xoog badatay bay yidhaahdaan oo ay xidid iyo degaan bayiin dabeetana qabiilkii dhamaa wuxuu u guuray sidii loo waday af Masay buu u guuray
وشيخ لها إنجليز كما يودك مان قولي اللي قيمبوا أفكودي قاتين كودي نود انت كوكن واحد عن لغاتك أن تدكودو قرين أما علمي كو قرين marka qof weyni ka dhintaba maktabadaadii qayb gubatay imka af Soomaaliga waa sida waayelkan soo gaadhnay afkay ku hadli jireen dadka ku hadlaa way yariyay hadda marka qof dhintabana maktabada badbaa gudumay waa maktabad bookska yaala maalin mid uu ka gubayo maalin kasta oo oday waayelo Soomaaliyeed uu dhinto hal buugo kamid af Soomaaliga gubtay haddii aan dadka Soomaaliga ku hadlaa aanay afkooda dib u noolaynin darsigan oo dhan waxaan uga dan leeyahay marka laba wax horta af cilmiga ma jirayaan leedin gubaysan oo inta nin kale afkiis ku xariifisa moodin inaad wax baratay ee afkaaga hooyaha ku noqdo afkaaga rasmiga aad ku hadasho ee ubadkaaga iyo carruurtaada iyo gurigaaga aad ku barto waxaanu sidaa dhaqan iyo diin iyo aqoon afafka muslimiintu ka mid yahay walidaalika afka Soomaaliga ay luqa carbeed iyo diin tira badan baa ku dhex jira waa af diimeed waa ka labaad dunida meel kasta aad tagto haddaad af Soomaali ku hadlayso tawaasul waa raabita adiga iyo bulshada isku xidha waa wax keeni kara inaad waddanka dib u tagi karto dadkaaga iyo waddankaaga aad ku xidhnaan karto dhashaadu hadduu afku ka go'o Soomaalinimaduna way ka go'day wadannadana degantiin Soomaaliya deganaan jirtay Soomaha aad u tira badan oo hore oo timi afku markuu ka sii go'aba xidhiidhkay la leeyihiin waddanku wuu sii go'aya waayo dadka raabitada isku xidhee ka dhaxaysa waa af idan waxaan leenahay qowminimada Soomaaliyeed maqashaa waa afkan inta afkaasi jiro ay qoomiyadaasi jirtaa inta afkaasi uu horu maray bay qoomiyadaasi horu maraysaa inta afkaasi uu af cilmiya noqdo bay waxbarashadoodu koraysaa intuu afkaas af cilmiya noqdo ayay si fudud inay wax u bartaan fududaanaysaa sida awgeed dadkiina qurbaha u soo baxay ama dhulalka lagaga tirada badan yahay yimi idinka xil gaara idin saaran oo ah afkan iyo sida u ilaashan lahaydeen siiba ubadkiina saa ugu gudbin lahaydeen waxa rumaysnaydeen waxa dhaqan lahaydeen waxa hidda lahaydeen waxa diin haysateen ubadkiina ugu gudbin lahaydeen siday u noqon lahaayeen dad Soomaaliyeed oo mar uun rajaynaya waddankoodii iyo dalkoodii iyo dadkoodii inay wax ku kordhiyaan ama wax ku kobciyaan marka warku wuxuu ku kooban yahay afafka gaaladu afafka bini'aadamka kale kama fiicna kamana tayo badna kamana ballaadhna laakiin waa sida afka cidda lihi ay u kobciso maalan duulalka afkoodu dhiman lahaa lowlaa aan diintu jirin carabta ka mid ah ummad dhan oo afkeeda aan kobcinin weeyaan dawladaha iyo waxaan ka jiro dhan marka dunida meel kasta aad tagto inaad shaqaysaa waxay ku xidhantahay inaad afkooda barataa cidi shaqo ku siin mayso mujarrad dafar si aad u xoogsato waa inaad waxoogaa soo towtowsataa kol aad inta suuqa lagu maro soo baratana waa inaad wax soo barataa si aad u shaqaysan karto carab hadday odhan lahayd wixii dad soo maray waddan carbeed qofkii shaqo rabaa waxa qasaba in luqada carbeed duniduba maanta af carabi ku hadli lahayd soo malayn mayse ilaa ingiriisintaasuun buu yidhi duniduba af ingiriisi ku hadashay carab dunidoo dhan ba u shaqo tagtay siiba khaliijkan hadday sharti ka dhigi lahaayeen shaqada qudho inuu af carabi lagu barto dunidu maanta af carabi ku hadli lahayd bay noqonaysaa idan dadkii afkooda danayn waaya waxa laga yaabaa maanta khaliijka markaad tagto inaad af ingiriisi ku hadasho in lagugu ixtiraamo haddaad af carabi ku hadashana in lagulaba hadli waayo sida afkooda iyagu u baahdileen amaba haddaad ku hadasho karay ku hadlaan urduuguna fi iyo afar erayoo daba socda haddaad tidhaahdo uun carabkuna intaasunbaabu ku hadlaya yani waa dad raba inuu afkooda u dhinto lowlaa kitaabullaahina uu dhiman lahaa haddaan ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebi maxamed ku qorrayn oo dadka muslimiinta inay diin bartaan aanay ku qasbanayn oo cid waliba inay dib u tix raacdo siibaweyhi iyo akhrido iyo maxaa la yidhaahdaa khaliil ibnu axmed iyo ibnuljinni iyo ibnulfaris iyo ibnulcali inay akhriyaan haddaanay ku qasbanayn wuu dhiman lahaa
إنه النور هذا وحهيا ودينك كان دينتان إسلامي أبا كدكتي إنه أفحيية أو النول والله آخري كره ما أنت ذا قرآن كي النبي محمد كسود دقي سيدي سينت الله آخريه لفهمي كره وإلا في إنجليز كما أنت بقول سنة كهر شكسبير إن الغوفة سيرمو يانا هذا آخري كريم وأيوه تطوره ويسبدله لكن كان إنه سايس بدله وحكى إلاليي وأصوش أي علماء النحوية الصرف قول دجان أففك أنا وحى إلالية ونحوها فورمال لانجويج كاسكاد من في إنجليزي تبرتبدا دونت الدنيا دوت كذا هذا كرتا مالك سال لكن مركو قرال نقضه سيستم كله ليه الله قرأ هتكون قصبنتي إن سيستم كا الله قرأ يوحى كو إلالين إنه سيستم كا صح نقضه جرامر كله ده شيء أففك أن جرامر كودو قرين تطوير كسابته ودين تادبتنا كسامالك وحنو دق وقصي جود بيا وقصي لما يوحى كمدا قرالك أن ولي سفي عن لو دراسينين النحويسي ما أنت اللغة العربية لهجات كان يكون هطلان كما يسوى هردين لولا أنا علماء هوريقورين قواعدتنا لقت الله بكرين قف كستو ما أنت ربين وف عربي قرى للي هي مبتدية خبر كيباد اسوي دارسي هدان مبتدية خبر كاساري وقورين وي بابي إلهي إذن اللغات كوحي حكية فورمال كدقة وإنفورمال هي فورمال لانويج فورمال لانويج وحا كدقة وحويان نحوه دون قرية كلمة ديتو مركا وحي كوكو أبنتي أفكي إنه يويدن لليدن دقنية هداية دين بوسيدا كما نفعنا أففك أنا أوسي قد بيسانا مسيش عشيني كوة كالي لما أنا هيدين نقضان أفديرادو أدبرتي هداد أف عربي برانيسو هداد إنجليسي برانيسو هداد الصواحيلي برانيسو أفديرادو أدبرتي أكون نقضو لكن أسأل كاقو يكالمي صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.